بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dhamaan ardayda Soomaaliyeed kusoo dhawaada channelka waxbarashada Ibra Solution insha Allah haduu Allah uu dilaal ka noqdo waxaa xalin doonaa saakay imtixaanka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee qaranka la qaaday sanadkii ugu dambeeyay gaar ahaan maadada Soomaaliga fasalka afraad ee dugsiga sare ardayda qaybta koowaad waxay ahayd sheeko oo ciwaankeedu yahay nabad baa nolol leh sheekadaasi akhrinaysaa kadibna su'aalaha oo markaas gilida ka jawaabaysaa oo waxaa saarneed 10 dhibic saarneed marka sheekadu way dheertahay ardayda sheekada akhriya sheekada waa soo akhrinay marka waxaa ka jawaab celinaynaa oo sheegaynaa oo ka war celinaynaa jawaab sax u dooraneynaa su'aalahan inta oo qoran akhri sheekada kor ku qoran kadibna dooro war celinta saxda ah 10 dhibcood saaran midka koowaad waxaa waaye suldaanka beesha wiilkiisu waxaa la oran jiray jawaab sax arday waxay noqonaysaa waa Faarax la oran jiray qoyska wiilka waxa uu ku caan baxay arday jawaab saxda waxay noqonaysaa sadaqada sidoo kale su'aasha saddexaad waxay ku leedahay suldaan samawade waxa ku dhaliyay doontiisa filsan waxa uu ku dhaliyay doonistiisa filsan arday jawaabta saxda waxaa waaye suldaanka waxa ku dhaliyay doonistiisa xarafka jawaab saxda oo ah quruxdeeda su'aasha kale xigta waxaa waaye reeruhu waxa ay wax ku cunaan arday jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah sixin su'aashanaad waxay noqonaysaa gabadha Faarax suldaan loo doonay waxa ay ahayd gabadh arday jawaab sax waxay noqonaysaa waa xarafka ba oo ah qurux iyo qiimo leh su'aasha lixaad waxaa waaye xilliga Faarax gabadha loo doonayay waxa ay ahayd xilli jawaab sax waxay noqonaysaa barwaaqo ah sidoo kale su'aasha xigta waxay leedahay Faarax aabihii waxa uu ahaa nin jawaab sax waxay noqonaysaa xarafka ta oo ah suldaan ah su'aasha sideed waxay ku leedahay sanadka Faarax gabadha loo doonayay dhanaanka xooluhu waa jawaab sax waxay noqonaysaa la sarifan jiray su'aasha sagaalaad waxaa waaye suldaanka beesha waxaa la oran jiray jawaab sax waxay noqonaysaa samawade su'aasha tobanaad waxay leedahay suldaanku marka uu gabadha doonayay waxa uu u tagay jawaab sax waxay noqonaysaa aabaheeda qaybta koowaad sida ayaa ugu baxan arday qaybta labaad qaybta koowaad weli ku jirnaa ciwaan hoosaadkeeda labaad waxaa saaran 5 dhibic saaran waxaa lagu dhahay keen erayadan la soo xulay sheekada erayo la macno ah erayadan sheekada ku jiraan erayo la macno ah keen erayga koowaad waxaa waaye maamuus erayo la macno ah keen maamuus arday waxaa la macno ah ciwaan sidoo kale erayga labaad waxaa waaye qaayo waxaa la macno ah arday oo eray kale la macno ah wuxuu noqon karaa xushmad sidoo kale erayga saddexaad waxaa waaye barwaaqo arday iyaduna waxay noqonaysaa barwaaqo waxay noqonaysaa oo la dhihi karaa eray la macno ah waxaa waaye waa baraaro oo kale sidoo kale eray kale waxaa waaye waa duunyo eray la macno ah waa hanti ama maal hanti sidoo kalena maal sidoo kale erayga ugu dambeeya oo barbaar arday waxaa la dhihi karaa waa wiilal markaas wiil hadda soo baxay ama carruurta soo baxay dhalinyarada waxaa loo yaqaanaa barbaar
sidoo kale haddii aan u gudubno qaybta xigta waxaa waaye ardayey waxaa noo qoran waxay ka mid tahay qaybta koowaad ee ka mid tahay dhamaystir weedhahan adiga oo akhrinaya sheekada markaad soo akhriso kadib weedhahan dhamaystir. Kow waxaa waaye labada qoys mid ka mid ah waxa u joogtay ardayey waxaa waaye gabar waa dhamaystirkeeda. Sidoo kale dhayda geela oo dhan wax ka maqan waxaa waaye dhayda geela waxa ka maqan oo dhan ka maqan ayaa lagu gaadhsiiyaa. Sheekada saas ugu jirta. Su'aasha kale waxaa waaye suldaanow aan la soo tashto. Meesha waxa ka maqan waxaa waaye gabadha hooyadeed ka maqan. Sidoo kale cambaro waxa ay odaygeeda ku tiri. Meesha waxa ka maqan waxaa waaye waxaa ka maqan samatar horta aniga waxba kama qabo in filsan loo guuriyo wiilka suldaan samawade saasay dhahday. Sidoo kale midda ugu dambeyso waxaa waaye ma yahay wiilku waxa ka maqan waxay noqonaysaa saddexdaa nin midkood ka maqan meesha. Ardayda sidaas waxaa ugu baxna qaybtii koowaad. Waxaa u gudgelaynaa qaybtii labaad waa qayb naxwo ah. Qaybta labaad naxwo waxaa saaran 24 dhibcood. Waxaa lagu dhahay goobageli. Kow waxaa lagu weydiiyey su'aal waxaa lagu dhahay sheeg saddexda qaybood ee naxwaha afka Soomaaliga. Ardayda jawaab sax waxay noqonaysaa codadka iyo dhismaha weeraha iyo qaybaha hadalka. Su'aasha labaad waxay ku leedahay ka soo saar labada fal iyo xiriiriyaha ku jira weedhaan. Hadda akhri doono waxaa ka soo saaray labada fal iyo xiriiriyaha ku jira. Haddii aad timaado hakad anna waan imaanayaa. Haddii aad timaado hakad anna waan imaanayaa. Ardayey labada fal ee ku jira waxaa waaye timaado iyo imaanaya. Xiriiriyaha ku jirana ardayey waxaa waaye anna. Sidoo kale ardayey midda xigta waxaa waaye qor saddexda falkaab ee ku jira qaybahan iyo si la aad ugu aayar. Waxaa laga rabaa saddex falkaab ku jirto saddexda falkaab ka soo saar. Ardayda falkaabyada saddexda ku jira waxay noqonayaan si iyo aad iyo aayar ay noqonayaan. Sidoo kale ardayey midda xigta waxay ku leedahay ka soo saar qodobadan saddex qodob oo magaca dhediga uu qaato. Qodobadan waxay kala yihiin ka iyo ta iyo sha iyo ha iyo da iyo ga. Saddex qodob oo waxaa sheegaysaa oo magacyada dhediga markaasi raaca oo ama uu qaato. Ardayey waxay noqonaysaa saddexda uu qaato magacyada dhediga ta iyo da iyo sha ay qaataan. Sidoo kale ardayda su'aasha xigta waxay ku leedahay oo 25aad ka soo saar weedhaan magaca guud iyo midka gaarka ah iyo falka ku jira. Axmed waa arday dadaal badan. Waxaa laga rabaa magaca guud ku jira ka soo saar, magaca gaar ka soo saar iyo falka. Ardayda jawaabta saxda waxay noqonaysaa magaca guud ee ku jira waa arday, magaca gaarka ku jirana waa Axmed, falka ku jirana waa dadaal. Sidoo kale ardayey su'aasha xigta waxay ku leedahay u beddel weedhaan fal taagan adiga oo adeegsanayo magacyaalka idinka. Waxaa waaye waxa aan tagi doonaa Kismaayo adoo magacyaalka idinka adeegsanayo waxa u beddeshaa fal taagan u beddel. Ardayda jawaabta saxda waxay noqon doontaa idinku waxaad hadda tagaysaan Kismaayo.
idinku waxaad hadda tageysaan Kismaayo. Jawaab sax ah saas waaye. Sidoo kale ardayda midda xigta waxay ku leedahay u beddel weedhan kelida ah wadar adiga oo adeegsanayo xidhiidhiye. Weedhan waxaa waaye waxa aan dhigtaa jaamacad. Waxaa u beddeleysaa arday wadar u beddel anagoo markaas adeegsanayno xiriiriye. Ardayda jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa waxaan dhiganaa jaamacad sidoo kale saasay noqonaysaa. Su'aasha kala xigta waxay ku leedahay faala ka bixi farqiga u dhexeeya magac daahsoon iyo magac muuqda. Arday magac daahsoon waxaa la dhahaa waa magac fikireed oo aan labaatan karin sida been. Waa magac fikireed oo aan la taaban karin sida been, run, rajo iyo falsafad, diin iyo wixii la mid ah. Magac oo markaasi oo guudna waxaa la dhahaa waa magac fikradeed. Waa magac fikradeed oo la taaban karo sida Axmed, Maxamed, qalin, buug, boorso iyo wixii la mid ah. Ardayda meesha waxa u gudubna qaybtii naxwaha ahayd. Waxa u gudagalaynaa qaybta saddexaad oo ah suugaan. Arday waxaa laga rabaa gabayga difaaca qaran waxaa curiyay abwaan aye. Arday jawaab sax waxay noqonaysaa gabayga waxaa curiyay waa xarafka oo ja oo ah kaariya curiyay. Su'aasha doonaad waxay ku leedahay inkastoo sabool ay haddana waan sirigtaa sacabada ma horsado. Waxaa suugaantan ku yidhi abwaan suugaantani amaystan waxaa curiyay. Jawaab sax waxay noqonaysaa Cabdiqaadir Xirsi Yamyama tiriyay gabayga waa xarafka ba. Qaybtan kale waxaa waaye ku qor magacyada mid kasta hees hawleedka. Waxaa saaran zeed dhibcood saaran geela iyo lo'da iyo beerta. Hees hawleedka koowaad waxaa waaye xayla duugii ku xidhigan jiray xareed beridiyo xays inoo sheeg. Hees hawleeddaas waxaa loo qaadaa arday lo'da. Sidoo kale lo'da meesha ka maqan lo'da gelinay. Hees hawleedka labaad waxaa waaye waleejeni halaq hadaad heyshiyo horaadada lulin wale lahariyo wale lahalow. Hees hawleeddaasna arday wax iska leh oo loo qaadaa adhiga ama ariga. 33 waxay ku leedahay geeridaadana gaabo madhan iyo gaajo laqaad. Arday hees hawleedka dadkaas wax iska leh oo loo qaadaa geela. Midda ugu dambeysa waxaa waaye makuma weeliyow matadaalo nin weyn iyo maad makuu tiriyaa. Hees hawleeddaasna wax iska leh oo loo qaadaa beeraha marka la falaayo la qaadaa. Qaybtan kale waxay ku leedahay akhri maansadan oo ka warceli weydiimaha waxaa saaran 6 dhibcood saaran. Maansada waxay ku leedahay mar habeenku dhaxan wadan dharaartuna kuleelayn dhexdhexaad hawadu tahay oon dhac iyo duulaan dhowr bahal lahayno reeraha is dhinac yaal dhaabadoodu nabad tahay maalkiina ugu dhalay oo dhiilo waaweyn dhanaan iyo dhitiyo ciir gooni loogu kala dhigay. Waxaa laga rabaa maansada marka akhriso kadib soo koob dulucda saddexda tuduc ee ugu horeysa maansada. Saddexda tuduc ee ugu horeysa maansada arday haddii aan soo koobno waxay noqonaysaa waxay ka hadlaysaa calashan
xili barwaaqo ah iyo xili markaasi nabad lagu jiro. Xili barwaaqo oo nabad lagu jiro ka hadlay saddexdaas ugu horeyso. Mar habeenku dhaxan wadan dharaartuna kulaylayn dhexdhexaad wada tahay. Sidoo kale ardayay waxaa kaloo laga rabaa qeex macnaha ereyga dhito iyo ciir. Ardayay ereyga dhito waxaa la dhahaa waa caano loo keydiyay in la lulo ama la dhamo. Sidoo kale ciirna waxaa la dhahaa waa caano la lulay oo subagii laga bixiyay saas la dhahaa. Sidoo kale waxaa laga rabaa ardayay waa maxay macnaha tuduca maalkiina ugu dhalay. Ardayay jawaabta sax waxay noqonaysaa maalkiina ugu dhalay dhadhabadu nabad tahay maalkiina ugu dhalay. Waxay noqonaysaa calashaan wax markaas oo maal badan laga faa'iido maal badan laga sameeyay. Sidoo kale ardayay qor labada maamahood ee ka hadlayo qiimaha iskaashiga waxaa saaran 4 dhibcood saaran. Ardayay labada maamah ee ka hadla qiimaha iyo markaasi oo iskaashiga wuxuu noqon karaa maamada koowaad waxay noqon kartaa ilka wada jir bay wax ku gooyaan iskaashiga ka hadashaa. Sidoo kale far kaligeeda fool ma dhaqdo iyadana waxay ka hadlaa iskaashiga ka hadashaa. Labadaas aan ugu filan maadaama labana la diray. Sidoo kale ardayay su'aasha 39aad waxaa lagu weydiiyay miisaan meeriskan soo socda waxaa saaran 4 dhibic saaran. Diin garaaradii nagu dhacdayo wabi dhabaashiisa. Ardayay meeriska wuxuu ka kooban yahay laba oo ka kooban yahay lugood waxaa la kala lahaa horaad iyo dambaad. Midka koowaad oo diin garaaradii nagu dhacdayo waa horaad. Horaadkaas waxaa ku jirta ardayay 13 alan ku jirto ama 13 shaqal. Sidoo kalena wabiga dabaashiisa iyadana waa loo yaqaanaa dambeed loo yaqaanaa hakadka wixii ka dambeeyo asna waxaa ku jirto 8 alan ku jirto. Haddii oo 13kii alan iyo 8 isku darana waxay noqonaysaa 21. Sida caadiga gabayga waxaa lagu yaqaanaa miisaankiisa waa 21 alan oo ka kooban yahay halka meeris ama wuxuu ka kooban yahay 20 ilaa 19 ugu yaraan u badnaan 21. Sidoo kale ardayay waxaa laga rabaa faalo ka bixi waxtarka saxda ah ay maamahdaani sheegayso. Nin wiil fiican lahi ma ciidan yara. Nin rati fiican ma geel yara. Nin oori fiican u dhaxday ma nafci yara. Ardayay haddii aan isku dayno nin wiil fiican lahi ma ciidan yara waxaa loola jeedaa micnaha waa nin wiil fiican lahi ma ciidan yara. Sababtu waxay tahay wiilku waa garab lixaad leh oo dhanka qoyska markii la joogo miyiga waayo dhanka soofinta xoolaha iyo tacabka beeraha ka qayb qaata. Nin rati fiican ma geel yara waxaa loola jeedaa micnaha nin rati fiican leh ma geel yara. Sababtuna waxay tahay waa ratiga waa gaadiidka dhulka misna waa xoolaha Soomaalida kan ugu waxtarka fiican. Nin oori fiican u dhaxday ma nafci yara waxaa loola jeedaa ardayay waxaa loola jeedaa micnaha nin naag fiican u dhaxda ma nafci yara. Sababtuna waxay tahay dumarku waxyaalo badan bay ka haysaa reerka dhanka ubadka ka warqabka hantida iyo xanaaneynta ragooda. Qaybta waxa ugu gudbayna ugu dambeyso arday afraad. Qaybta afraad waxay ku leedahay isu beeg erayada iyo micnahooda.
Ereyga koowaad waxaa waye ardey waa hanfi. Hanfi waxaa ku aadan dabeyl kulul aa ladaha ku aadan. Ereyga labaad waxaa waye tigaad. Tigaadna ardey waxaa loola jeedaa daaqa ama cawska xooluhu daaqaan. Ereyga kale waxaa waye waa huuri. Huurina waxaa ladahaa ardey doon yar oo lagu kalumeysto aa ladahaa. Ereyga kalena waxaa waye ahmin. Ahminna ardey waxaa loola jeedaa wananka iyo orgida jarka ah ee laga ganacsado. Sidoo kale ardey hawraar. Hawraar waxaa loola jeedaa ardey ujeedada iyo biyo dhaca hadalka. Waxaa ugu dambeeyo ormeyn. Ormeyn ardey waxaa loola jeedaa socodka xooluhu marka ay isdaba galaan aa ormaan ladahaa. Su'aasha afartanaad waxay ku leedahay wadaree magacyadan. Magacyadan soo socdo waxaa ka dhigaysaa wadar. Kow waxaa ku qoran aqal. Aqal haddii aan wadar ka dhigno waa aqalyaal. Midka labaad waxaa wado. Haddii la wadareeyo waa wadooyin. Kaluun haddii la wadareeyo waa kaluumo. Qore haddii la wadareeyo oo jamac laga dhigo waa qoraalyaal. Qaybta shanaad curis 16 dhibcood aa saaran. Ka qor curis ka kooban ugu yaraan 300 oo erey ka mid ah mawduucyadan soo socda. Waxyaalaha maandooriyaha iyo saameynta adeegsiga baraha bulshada. Waxaa ka qortaa lagu dhahay ciwaanka qoraal lagu dhahay. Intaasna ardey waa fududahay waxaa waye ninka isku dayi karo. Hada billahi tawfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ardayda kalena la wadaaga channel kana subscribe soo dhaha waa mahadsan.